war soo dhowada asxaabta maanta waxaa idii hayaa sheekadii wiilkii yaraa ee saboolka ahaa. Falan inta aanan sheekada sii dhexgelin fiidiyowga lag isaar gambalalkana furo hadad nagu cusub tahay aan sii guda galno sheekada. Sheekada waxay ku saabsan tahay wiil yar oo sabool ah oo la yidhaahdo Jim. Jim wuxuu ahaa 11 jir agoon ah oo ku nool nolol adag, isagoo kabaha dadka u nadiifin jiray si uu u helo lacag yar oo uu cunto ku gato. Habeen qabow oo jiilaal ah, haweenay gaboobay oo aad u liidata ayaa soo garaacday albaabka guriga Jim. Markuu furay, waxay weydiisatay cunto maadaama aysan wax cunin muddo maalmo ah. Jim wuxuu haystay hal rooti oo keliya oo uu qorshaynayay inuu casho ka dhigto, asigoo aan waxba cunin maalintaas oo dhan. Si naxariis leh, wuxuu go'aansaday inuu rootiga u dhiibo haweenayda, isagoo arkayay inay uga baahi badan tahay isaga. Markii haweenaydu cuntada cunayso, waxay isu beddeshay fariid. Waxay ku ammaantay Jim inuu yahay wiil wanaagsan, waxayna barakaysay noloshii Jim oo ku deeqday cunto iyo maal badan. Wixii intaas ka dambeeyey, Jim mar dambe gaajo ma dareemin. Cibro, samaha iyo wanaagga lama hilmaamo, abaal ayaa loo helaa.